بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalahayga qaaliga ah waa idin salaamay meel walba oo caalamka aad ka joogtaan iyo sidaad u dhantihiin oo walaashiin xayaad oo idinle mar kale kulanti wanaagsan isku soo noqdo wacan waxaan idiin rajeynayaa nabad iyo kheyr iyo caafimaad meel walba oo caalamka aad kaga nooshihiin walaalahayga qaaliga ah fadlan hadaad ku cusub tahay janalkayga kusoo dhawow subscribe saar si aad ila socotid gambaleelka furo insha allah muuqaaladeeda haddii aad ka heshidna sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad like saartid liketa waxay iga caawineysaa inuu muuqaalkayga dad fara badan uu gaaro ay arkaan insha allah waana ku mahadsan tahay walaal qaali ayaan ku leeyahay maanta waxaan rabaa inaan idinla qeybsado qada aan sameeyey insha allah aada u fudud oo easy ah borotiin iyo nafaqana leh insha allah iyo vitamins badan marka walaalahayga sidaad arkaysaan qadadeena maanta waxay ka kooban tahay basta macaroni oo salataata ah insha allah ama isku rog hadba saad u taqaanaan kalluun yumbi ama malayga yumbiga insha allah loo yaqaano iyo salar sidaad ujeedaan fruud yar iyo cabitaan aada u wanaagsan maasha allah cabitaanka wixii aan ka sameeyey waa idin tusayaa caafimaadka ayuu aada ugu fiican yahay dadka dhaayadka ku jiro oo raba inay is caateeyaan insha allah marka walaalahayga daawasho wacan haddana cuno karinteeni ayaan bilaabaneynaa walaalahayga qaaliga ah hadduu rabbiga awoodda leh inuu saamaxo waxaan soo qaatay baankan ama maqligan sidaad ujeedaan wuu dhaqan yahay oo waa qoyan waan yaro qalajinayaa marka kadib markaa saliid ayaan ku shuban doonaa insha allah sidaad arki doontaanba inuu i yaro qalala ayaan sugayaa marka hadda saliid ayaan ku shubay saliidda iskuma badinayo walaalahayga waayo saliidda caafimaadka uma wanaagsana sidaan wada ogsoonahay soo marka saliidda anigaan isticmaalayana waxawaaye sunflower oil ma ahan saliid cadey haddii aad isticmaashid waxaan ku oran lahaa iska daa uma wanaagsana caafimaadka waxaan yacni ani ahaan aan ka doorbidi lahaa sunflower oil waa saliid khafiif ah oo yacni cholesterol aan lahayn oo aada u fudud marka insha allah kana wanaagsan dhanka caafimaadka marka taa ayaan yacni kugu yacni dhiirigelin lahaa inaad isticmaashid insha allah hadda basal ayaan ku darsanayaa walaalahayga sidaad ujeedaanba xabad basal oo size dhexa ah ama yacni dhexdhexaad ah aada uma weyna aadna uma yara si yar ayaan usoo jarjaray sidaad arkaysaanba saliidii ayaan kusoo darsaday waan yaro walaaqayaa waxaan sugayaa intuu ii yaro guduudanayo ama casaan uu ka noqonayo midabkeeda ama kafeey hadba saad u taqaanaan insha allah basasha marka hore waxaa wanaagsan inay ku bislaato inta aad hore kaga dari lahayd raashinka marka waxaa waaye haddii aad ku dartid raashinka ayay hadhow yacni markii aad cunaysid afkaaga ayay kasoo yacni ureysaa marka hadda waxaan ku darsaday walaalahayga sanjabiil iyo tuun aan soo tumay waa labadaba fareesh waaye tuunta iyo sanjabiishaba marka waan soo tumay mooye ayaan kusoo tumay haddana waan ku darsaday sidaad ujeedaan waan yar walaaqayaa si ay isu dhex galaan basashii saliidii tuuntii iyo sanjabiishii intaba maasha allah sanjabiisha aada ayay u wanaagsan tahay caafimaadka cuno walba oo karinaysid inaad ku dartid ayaa wanaagsan insha allah kuley aniga waan isticmaalaa wax walba oo aan karinayo kama maqnaato marka walaalahayga idinkana waxaan idinkugu dhiirigelinayaa inaad cuntaan maasha allah aada ayay u wanaagsantahay caafimaad badan ayay leedahay hargab hadduu ku haayo sanbuur haddii aad leedahay marka cunaha hadduu ku xanuunayo maasha allah waxaasoo dhan waxaa waaye way u wanaagsan tahay iyadii filfisha aad ayaan u isticmaalayo tuunta marka insha allah walaalahayga sidaa iila socda waan yaro sugayaa intay guduud kasoo noqonaysa basasha insha allah intaa kadib walaalahayga qaaliga basashii casaan ayay ii noqotay ama way guduudatay hadda waxaan soo qaatay xabad iyo badh tamaandho ah ama xabad iyo jab hadba saad u taqaanaan oo yacni xabuub ah ama yaanyo insha allah waan soo jarjaray iyadana si yaryar ayaan usoo jarjaray sidaad arkaysaanba way waaweyneed oo waxa waaye xabad iyo jab ayaan ka isticmaalay marka insha allah sidaa iila socdo wax yar ayaan dabka ku daanayaa waana daboolayaa insha allah haddana walaalahayga qaaliga waxaan ku darsanayaa xawaashi kala duwan ama spices hadba saad u taqaanaan hadda waxaan isticmaalay curry powder iyo filfisha madow black pepper iyo waxawaaye curry powder marka haddana waxaan isticmaali doonaa insha allah oo kale oo aan kusoo darsan doono waad ila arkaysaan waxaan kusoo darsada wax yaro turmeric ah ama huruud waan isku walaaqayaa intaa si ay isu dhex galaan maasha allah udugeeda huruudana aada ayay u wanaagsan tahay midda fareeshka iyo midda bowdharka labadaba insha allah aniga waan isticmaalaa
intaa kadib haddana walaalahayga wax yaroo milix ama cusbaha ayaan ku darsaday oo qaandada yar teaspoonka afkeeda hore ah aad uma badna aniga maraq digaag ma isticmaalo ama jumbo soo marka caafimaadka uma wanaagsano waa laga deeriyey marka insha allah mar hore ayaan iska dhaafay walaalahayga soo marka cusbada ayaan isticmaalaa cusbadana midda sea saltiga ayaa fiican haddana waxaan isticmaalayaa walaalahayga qaaliga ah babrika ama barbarooniga shiidan barbarooniga dhowr nooc waaye isagoo jaalo ahna wuu jira isagoo cagaar ah soo markaani midka guduudan ama midka cas ayaan isticmaalayaa waa babrika haddana walaalahayga waxaan ku darsanayaa sidaad arkeysaanba baastadeeni baastada waa baasta macaroni way ii karsaneed oo way ii diyaarsaneed soo marka qof walba uu garanayaa kolley sida loo kariyo baasto nooc walba ee tahay marka ma rabo inaan waqti idinkaga lumiyo karinta baasto marka walaalahayga sidaa ila socda waan ku dul darsaday kadibna waan isku yacni walaaqayaa si ay isu dhex galaan qoyaanka iyo baastada ee u wada gaarto marka insha allah waa kanaa saas ayaan isu dhex gelinayaa sidaad ujeedaanba waan wada gaarsiinayaa qoyaanka dhan ama yacni yaanyada ayaan wada gaarsiinayaa baastada haddana walaalahayga qaaliga ah waxaan gudagalaynaa steebkii labaad ama qeybtii labaad halkan waxaa iigu diyaarsan sidaad arkaysaan malaay ama kaluun hadba saad u taqaanaan ama samaki qofba wuxuu u yaqaanaa si gooni ah marka waxaan kaloo haystaa xawaashi kala duwan iyo xabad liin dhanaan ah iyo sidoo kale wax yaroo saliid ah xawaashiyada waxay ka kooban yihiin cusbo ama milix huruud barbarooni curry powder iyo filfisha madow waa intaas marka insha allah intaa ayaan isticmaali doonaa sidaad arki doontaanba walaalahayga qaaliga ah hadda dhinaca kale ayaan u gadinayaa malaayga noocaan isticmaalayo waxa waaye malaay yumbi maadaama malaaygan uu noocyo badan yahay maanta yumbi ayaan isticmaali doonaa insha allah malaaygan waxa uu ku wanaagsan yahay in saliid lagu shiilo oo ma ku wanaagsano in foorno yacni lagu kariyo ama la geliyo yacni waxaan ka wadaa kuma macaana soo marka aniga waan shiili doonaa maanta insha allah oo saliid ayaan ku shiili doonaa biidnillahi alkariim malaayga midka yacni ovenka ku macaan waxaa ku macaan ovenka midka la dhaho salmon fishka ama salmon fish hadba saad u taqaanaan marka kan maanta waa shiilayaa insha allah sida ila socda walaalahayga qaaliga ah hadda liintii ayaan ku tuujinayaa liinta xabada ayaan isticmaalayaa insha allah maadaama qoyaan kale aan isticmaaleynin liinta iyo saliidda oo keliya ayaan isticmaalayaa si uu yacni igu qoyo kaluunka uu xawaashiyadana u wada gaaro ee ugu milmaan ayaanu isticmaali doonaa biidnillahi alkariim marka sida ila socda walaalahayga qaaliga hadda jeexi kale ayaan ku tuujinayaa sidaad arkaysaanba waxaan gagaarsiinayaa xawaashiyadii aan ku daray xawaashiyada waxay siinayaan kaluunka dhadhan iyo udug intaba maasha allah marka walaalahayga qaaliga ah la-aantiisa yacni xawaashiyada la-aantood lama karin karo ama lama dubi karo hadduu yahay hilib iyo kaluun intaba ama digaag insha allah marka way macaaneynayaan walaalahayga sidaa ila socda insha allah goordhan waan dubi doonaa biidnillahi alkariim daawasho wacan ayaan idin leeyahay waxaan soo diyaarsanayaa saliiddii aan ku karin lahaa iyo maqligii ayaa dabka ii saaran saliiddii ayaan ku shubanayaa insha allah saliiddaan isticmaalay waa sunflower oil sida hore idinkugu soo sheegay waa saliid khafiif ah sidaad u jeedaanba haddana insha allah waxaan kusoo ridanayaa kaluunkeenii oo inoo diyaarsanaa
kalluunka markii aa xawaashiyada marisid wuxuu ku wanaagsan yahay in aad dhigtid waxyar 10 daqiiqo ilaa 25 ama 30 daqiiqo oo yacni qaboojiyaha aad gashatid. markaan hadda time ma haysanin hore ayaan ka mariyay xawaashiyada horena waan ka duwaya insha allah sidaa iila socda. adiga haddii aad waqti haysatid waxaa fiican in uu ku yaalo waxyar uu xawaashka yacni kuugu si fiican kuugu wada gaaro uu kuugu dhago insha allah markaa kadib aad dubatid. marka sidaa iila socda walaalahayga qaali. haddana walaalahayga qaaliga ah malaayga dhanka kale ayaan u rogayaa sidaad ujeedaanba oo dhankii hoose ayaan xagga sare soo mariyey kii xagga sarena xagga hoose ayaan mariyey si uu yacni u bislaado. malaayga markii aad duweysid saliid kulul waa inaad ku dubtid, saliid qabow ha ku dubin insha allah. hadda waa diyaar walaalahayga qaaliga ah oo waan ka saarayaa. malaayga wuu bislaaday sidaad ujeedaanba midabkiisana wuu isbedelay. waxaa ku garan kartaa malaayga markuu bislaado kalarkii hore wuu ka bedelmayaa oo wuxuu noqonayaa midab kafey ah ama brown ama guduud hadba saad u taqaanaan. hilibka ceeriinka ahana wuu kuu qalalayaa. marka inta ka badan wuu iga gubanayaa aniga kuma haynaya saliida insha allah waan ka saarayaa hadda sidaa iila socda walaalahayga qaaliga. waa kana halkan ayaan soo saaray si saliida uu uga dhuuqo tiishka yar ayaan hoosta ka mariyey. marka walaalahayga waa aragtaas wuu bislaaday maasha allah aadka u quruxda badan. hadda halkan ayaan ku diyaarsan doonaa biidnillah. wixii kale aan sameyn lahaa ayaan sameysanaya. cabitaankeeni ayaa hadda soo shiidanayna ila socda wixii aan ka sameyn doono biidnillah. cabitaanka maanta aad ayuu u fiican yahay insha allah la socod wanaagsan ayaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah. cabitaankeena maanta insha allah waxaan ka sameyn doonaa sidaad arkaysaan walaalahayga qaaliga ah babaay ama camba babaay hadba saad u taqaanaanba insha allah. halkana waxaa iigu diyaarsan mashiinkii aan ku shiidi lahaa smoothiga ama casiirka insha allah. hadda waxaan ku ridan doonaa walaalahayga qaaliga ah camba babaygii. dadka qaar ayaa u yaqaana camba babaay gobolada waqooyi somaliland insha allah. marka walaalahayga mar walba waxaa isku dayayaa inaan idin fahansiiyo waxaan sameynayo. dadka qaarna waxay u yaqaanaan koonfurta soomaaliya babaay oo keliya. marka walaalahayga labada luuqadoodba maadaama labada dhanba aan ka imid waan idinku sheegayaa insha allah si aad u fahantaan insha allah. aniga labada dhanba waan ka imid oo waan kasoo jeedaa. marka walaalahayga sidaa iila socda insha allah muqdisho iyo somaliland labada dhinacba. marka waxawaaye hadda waxaan ku darsanayaa waxawaaye cream caramelkan habeen hore ayaan sameeyey videoga waan idiin soo gelin doonaa insha allah. editing ayuu u baahan yahay in la edit gareeyo cod la saaro biidnillah laisku keeno. marka kan midka ku xiga ayaan idinkaga dhigaya hadduu rabbiga awooda la ii saamaxo walaalahayga qaaliga ah sidaa iila socda. cabitaankeena waa diyaar axbaabi. koobabkii ayaan soo diyaarsaday aan ku shishuubi lahaa ama aan ku diyaarin lahaa casiirka. sidaad ujeedaanba waxaa waaye rasiin oo saa-idna ma ahan biyo saa-idna ma ahan just waxaa waaye meel dhexe oo aad u wanaagsan maasha allah smoothiga. hadda markii aan ku shubay inta waxaa iigu diyaarsan walaalahayga qaaliga ah jia seedka caana ayaan ku dhigay oo waxa waaye ilaa adi 1 saac camal ayuu ii yaalay. fridjka ayaan geliyey qeybta hoose oo caadiga ah markuu ii qabow yahay maasha allah. jia seedka aad ayuu u fiican yahay dhanka helsiga haddii aad dhaayad ku jirtid maasha allah miisaan iska dhimaysid isticmaal. haddana walaalahayga qaaliga ah waxaan guranaynaa qadadeeni maanta insha allah. baastadii sixniga ayaan kusoo qaatay oo aan yacni ku ridi doonaa oo soo qaatay. sidaad arkaysaanba baastada way kulushahay oo waxa waaye waan soo kululeeyey. marka waxaa wanaagsan mar walba cuno aad cunaysid cuno diirimaad ah inaad cuntid oo qandac ah. soo marka waxa waaye cunada qabow bakteeriya ayaa laga qaadaa oo caloosha ah. mar walba ku dadaal adigii ubadkaagaba cuno oo diirimaad ah inaad cuntiin caafimaadkana u wanaagsan insha allah. gunti iyo gabagabadii maasha allah tabaarakallah walaalahayga waan soo dhameeyey. markay soo idlaatana sidan ayay inoogu soo baxday qadadeeni maanta aan idinla wadaagayay oo aadka u fududeed maasha allah una yacni borotiinka iyo fitamiiniska badan maasha allah oo waxa waaye qada fudud oo easina ah
waqti yarna aad ku sameysan kartid maasha allah aadna u macaan walaalahayga qaaliga ah. halkan salarkii waxaa noogu diyaarsan kalluunkii, halkan yarna furuud yar ayaan kusoo diyaarsanay oo babaay iyo qara ka kooban. halkanna baastadeenii aadka u macaaneed ayaan kusoo diyaarsanay sidaad u jeedaanba. xagga kalena cabitaankii ayaa inoo yaala maasha allah, sidan ayay inoogu soo baxday quruxda badan. marka walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa videogeena maanta inaad ka hesheen. haddii aad waxaan ka faa'iideysatay fadlan walaal nagu soo biir channelka subscribe saar si aad noola socotidna gambaleelka furo, video walba wuu kusoo dhacaya markii aad gambaleelka furatid biidnillaah, waana nagu xirnaan doontaa insha allah. haddii aad muuqaalkayga maanta ka heshay like ii saar insha allah. intaa markale kulmeyno muuqaal midkan lamid ah aan ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa walaalahayga qaaliga ah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. meel walba aad joogtaan nabad iyo caafimaad, fii amaanillaah.